guud ahaan gaar ahaan xoolaha waxay daaqaan dhirta neefkaas xoolihiisa waxa ka soo baxa cad iyo caano iyo suuq aynu ku noolnahay haddaynu geedkii baabi'ino oo faas iyo godin iyo taayir uga tagno haddee innaga meel ku noolan doona adkaan doontaa naftanna lagu socdaa jiilkeena jiilkiisa lagu socdaa arrintaa marka muhiimad gaara bay noo leedahay gaar ahaan soomaalinimo ahaan gaar ahaan reer puntland meesha dhuxusha ugu badan laga sameeyo soomaaliya marka laga reebo kismaayo waxay la tahay waa puntland dhuxushaan ka hadlaynaa dhuxusha waxa sababay aad u badato waa dhoofka dhuxusha markuu batay oo waddamada carabta loo dhoofiyey oo ganacsi laga sameeyey arrintaas aad bay loo taabatay nasiibadaha hadda xoogaa waa lasoo ilbaxaya gaas iyo dhuxul dhagax iyo waxa moodaa stuuf in la keenay haddaan usoo laabto barnaamijka yareynta dhuxusha iyo enerjiga waa mas-uuliyad kulligeena saaran inaynu isxasuusino ilmihayna xasuusino dadka ehelka xasuusino soomaalida xasuusino qofkii khaldan oo waddanka iyo biyada dhib ku haya nolosheena aan qabanno si wada jira dowlad keliya la taal shacab oday iyo wiil iyo gabar kulli waa hawl loo taallo oo xilli ka saaran yahay taas marka inaynu xasuusino oo sharaf bay noo tahay waxaan mahadcelinayaa wasaaradda iyo shaqaalaha wasaaradda xil iska saaray hawshan oo diyaariyey dhammaan shuruucdii loo baahnaa maanta wacyigelinta aan qabanayno waxaa ka horreeyey shirar hore oo ay ka mid tahay in tababar la siiyey suxufiyiin si gaar ah loogu tababaray sida loo diyaariyo warbixinada deegaanka oo tababar laba bil u socday ahaa reeraan beeya maanta waxaan filayaa inaan shaqo badan qabanno shaqadaas ay noqoto inaan maskaxa tuujinno oo si daafuran uga sheekayno sida loo yareyn lahaa dhuxusha nafteenna iyo guryaheennana aan ka bilowno si ay noogu suurto gasho inaynu badbaadino bal waxa haray dhibaatooyinka ay keentay waa la soo jeediyey madaxdii ugu horeysana waa ka hadleen hadday roob yaraan tahay hadday harkii tahay hadday mirihii tahay hadday isticmaalkii iyo caafimaadkii tahayba dhibaato weyn bay noo geysatay annaga haddaan nahay hay'adda UNDP waxaanu gacan ka siinaa wasaaradda deegaanka iyo dagaalanka cimilada arrimo badan oo ay ka mid tahay sidii loo yareeyo dhuxushaan waxyaalaha hadda aan qabanay waxa ka mid ah aan ka caawinay wasaaradda in la helo dadka ka shaqeeya dhuxusha loo sameeyo iskaashatooyin wuxuun lacaga la siiyo si ay ganacsi kale u dabaan oo u badbaadiyaan inay dhuxusha jaritaankeeda yareeyaan sida inay bilaabaan stuufiskii birjikooyinkii iyo barnaamijyada noocaas oo kale ah hadda waxaa qorshaha ku jira in 9,000 oo birjikooyinka dhuxusha yareeya ah loo qaybiyo dadka tuulooyinka iyo dadka qaxootiga ah oo magaranaysa aan tabarta daran si markaas loo suurtogeliyo bal isticmaalkan la yareeyo xoogaa waxyaalaha kale oo muhiimka ah oo wasaaradda ay tallaab ka qaado waxaa ka mid ah sidii loo sameyn lahaa bal at least badbaadinta deegaanka oo ay ka mid tahay yareynta cimilada mashruuciyada jira oo ka caawino sidii loo sameyn lahaa waro sidii loo sameyn lahaa badbaadinta deegaanka oo loo sameyn lahaa waro biyaha celiya si loo suurto gasho in xoolihii biyo helaan dadkii biyo helaan waxaa la socotaan sanadkii 2012 abaartii baanayd ee ka dhacday Soomaaliya in Puntland loo soo qaxay dad badan oo gobolka kale ka yimid Soomaaliya yimaadeen Puntland labada soo raashaday iyo nolol iyo roob dhaawankii ay qoday wasaaraddu samaysay aad bay looga faa'iiday barigaas aad baa loogu diirsaday waxaa jira aad 120 kun oo reer ay ka faa'iideen muddo 3 bilood hayay waxaas waa fikir iyo maskax ka timid wasaaradda deegaanka shaqaalaheeda iyo khibradeeda iyo hoggaankeeda waxaanu jecelnahay in hore u socono haddii lahaydna waxyaalaha aynu isku wacyigelinayno waxa ka mid ah runtii waxaa la sheegay ama jira waxa qofka u daynaya inuu dhibta jaro waxaa ka mid ah aqoon darro waxaa ka mid ah fakriga waxaa ka mid ah in qofka uu shaqo la'aantu ay u baahsan tahay waxaa jira wasaarada qaadasta arrimahaas oo sidii loo yareyn lahaa fakriga mashaariic badan iyo barnaamijyo badan oo socdaa jira dowladdu wado waxaan rajaynayaa waxaasoo la iskaabaan haddii la haydno wasaaradda keligeed ma gaari karto waxaa markaa qof kasta inuu mas-uul iska saaro sidii waddankan loo badbaadin lahaa
البيان اللي قفل قبل عرطة قلنا في عجليسا ليس في عجليسا وما إما أيوه أتكلم أنت هاتها في الدواء قف أمان كلا لما جيت بان بيروشي لما جيت بان بيري أو بحي أو سوالك عالم كلام على المتوقع قف كل جيت بيرو وصوب حديت كاس أنا لما جيت بيرو أنا سيد جيت بيرو هذا هو بير كلا وكما سنتهي هدي أنا هذا بيرينا هرب بيرينا وحضرت لها بس كده إن هاي جيت بيرت أنا لما جيت دوران ورابسو سمعنا صبر كاجي وفيه هنا ورابسو وصبحه أو وقت سيسو كلها كبير نراك ودور الدنيا كبير حفظي وعلاني دعانك دباتر آخر هايستوى حكمنا هذا كان المركز أيدير كازمة أفضل كورة المحاكاة الدنيا وحمد الله واحد بود ومكر لها تاسوى عبان وعدين خاصة وقلت المسكحة ولا بدلاء ونوشي قف كستون لكن ولا صارنتها هذا الأيام كلام ميرك بالماء صحيح كي يبين الجود أو أكل تلو كاس وحكم له أو كالتر كله حكم له تصور أنا كسماه كل النقطة إن بيا وسخنا بنان جلس بشبه ولا بيلعب يقول يشوف كرام تكاد مركب يحكي له بين ذي بين ذي تمام كل الولاية وبين الولاية سا وحلو شو بتاع بيلعب واحد ما ملعب marka waxaan la sheegayaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta wax ka mid ah maskaxdooda wax laga bedelo shirkaani waxaan rabnaa inteena halkaa fadhida inaan isla qaadan bixisho sidii loo yareyn lahaa inaan ballan qaadno inta kale aan gaarsiino inta in laga daan gaarsiino in laga sii gaarsiiso dadku waxaan isleeyahay wax badan bay ka tari kartaa dadka Soomaalida waxa ma akhriyaan baa lagu khantaa laakiin waxbay is gaarsiiyaan waxba waa dhegeystaan marka dadka ka bilowda waxaan isleeyahay wax badan bay kala qabanaysaa أنا وضعنا رفعنا المرأة بش عالمك برامج كان وسيلة الدولة وزارة وشقينا وحنكون وشقينا برامج الدجاج هذا UNDP ونوضع مثليه هذا FAO هذا يولب له هذا ودك الجنوب شبه راس هذا باقي وشقيا لكن أهلته وعيقلته ديارته شروع ذا يوم سنة جديه وحاء وروح الصار وقران نسي هذه UNDP وترشق نسي وزارة كم يكون من بلد دولة قوات العجل الدولة شرفنا نوتها لنترشق عبد الله شرفنا نوتها ورمركة دولة دولة عبدالك تعالى سيئي فرطة شهر يغرمات اللي يكسر إلى قاره مزولين دانا وحنا وصارة دولة عنهم تعدي الله هيدنا وحنجيني يعني بوندي الله قارته هذا يسكت لي لابته وأنا أذكر قعان سيئي عبدي الله هيدنا taasna waxay ku xiran tahay aqoonta iyo fikirka iyo maskaxda haddii isu geyno oo meesha loo socdo waa gaari karnaa waxaan rabaa hoostana ka xariiqo wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada oo ah wasaaradaha ugu da'da yar intaada Puntland jirtay oo si gaar loo magacaabay inta xawliga u aaday iyo qalabka ay samaysay iyo shaqaalaha aqoonta ay leeyihiin iyo xirfadda ay soo bandhigeen oo wax lagu faani karo Puntland لولا فائدين كره قوية كله Soomaaliya إذا بفضلها كانت ترى سهل مركز Soomaaliya وسعته كل يوم جاهنا وهم هالعلنا يا عدانك يشقالها يا ترياش وزارة ديانك وسبدل كاملها المركز واحد لنا هروسية شربنا الموت هاي كل جان إنه هرمتي سنة ولما ستي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته